Assalaamu calaykum. Ku dhiban tahay sida aad TikTok lacag uga samayn lahayd. Ma jeceshahay inaad TikTok lacag ka samayso, balse ma buuxin kar lahayd qaar ka mid ah shuruudihii TikTok looga baahnaa si lacag looga sameeyo. Haddaba muuqaalkan yar oo kooban ayaan kugula wadaagi doonaa. Koobkaaga shaaha soo qaado, soo diyaar garow. Marka horeysa saaxiib, waxaad galaysaa TikTok. Saaxiib, markaad TikTok soo gasho, halkan ay ku keento interface-ka TikTok-ta. Waxaad ku dhufanaysaa halkan oo ku calaamadin doona tallaabooyinka aan qaadayo, adiguna qaad. Haddii kale hadhow wax kaa qaldamaan, aniga ay eersan. Profile-ka ayaad ku dhufanaysaa. TikTok-ta aan rabo inaan qayb ka mid ah shuruudihii layga baahnaa si aan lacag uga sameeyo aan ku buuxiyo waa TikTok-tan hortiina ka muuqda. Kadibna waxaad ku dhufanaysaa meesha sare ee dhinaca midigta ee saddexda calaamadood ay ku qoran tahay. Kadibna waxaad kasii dooranaysaa halka ay ku qoran tahay balance. Sidan ayaa ku soo bixi doonta saaxiib. Halkan ay ku qoran tahay required. Waa halka aan rabno in hadhow ay ku qoranto verified. Markaas si ay verified ku qoranto, waxaad dooranaysaa identity verification halka ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Sidan ayaa ku soo bixi doonta. Waxaad leedahay verify now. Verify now markaad tiraahdo, halkan ay ku qoran tahay country-ga waxaad ka dhigaysaa Pakistan ayaad ka dhigaysaa. ID Pakistan ayaan anigu ku buuxinayaa. Marka Pakistan ayaad ka dhigaysaa. ID-ga haddii aanad garanayn sida loo sameeyo, commentiga noogu reeb insha Allah waan kula wadaagi doonaa iyadoo si fiican oo clear oo la wada fahmi karo. Kadib saaxiib, halkan Pakistan ayaan ka dhigayaa. Soomaaliya lagama ogola. Soomaaliya anu garan maayo waxay u diidayaan. Soomaaliya mala waxay yiraahdeen TikTok xadi doonaan. Kadibna waxaad oranaysaa next ayaad leedahay saaxiib. Markaad Pakistan ka dhigto next ayaad oranaysaa. Mar haddii intaad samaysay, maxaa xigaya? Halkan yar ay ku qoran tahay I consent ayaad tigta saaraysaa. Kadibna next ayaad leedahay. Intaan markaad samaysay saaxiib, sidan ayaa ku soo baxaysaa. Waxaa ku qoran halkan front of ID. Kadibna halkan waxaad dooranaysaa yare galeriga ee sawirka laga soo gelinayo. Wuxuu ku leeyahay soo geli wejiga hore ee ID-ga. Kadibna upload ayaad leedahay. Waan kuu sheegay saaxiib, ID-ga haddii aanad garanayn sida loo sameeyo commentiga noogu reeb. Waan kula wadaagi doonaa. Kadibna tallaabooyinkan ayaan baad raaci doontaa, waad buuxin doontaa. Kadibna hadhow waxa lagu oran doonaa meesha required-ka waxa lagu oran doonaa verified ayaa la oran doonaa. Kadibna sidan ayaad u soconaysaa. ID-gaagii ayaad soo dooranaysaa. Sawiradan oo kale waa iska soo dhaafaysaa. ID-ga marka halkan waxaad gelinaysaa saaxiib wejiga hore ee qaybta hore ee sawirkaaga ku yaala. ID-gu sidaad ogtiin qayb hore iyo qayb dambe leh. Qaybta dambe waa marka dambe aynu gelinaa, laakiin imika wuxuu ku yiri ID-ga xaggiisa hore geli. Kadibna ID-ga ayaad laba jeer saa ugu dhufanaysaa. Kadibna saaxiib wuxuu ku keenay doonaa halkan. Markuu keeno waxaad leedahay confirm. Kadibna waxaan gelinaa back of ID ama ID-ga xaggiisa dambe. kadibna saaxiib sidan ayaad wadaysaa. Kasidaan wado waxaad soo gelinaysaa ID-gii xaggiisii dambe ayaad soo gelinaysaa. Intaas ayaan ku joojinaa saaxiib muuqaalka. Si aanu muuqaalku noogu dheeraan, video-ga noogu dheeraan, oonad ugu dul caajisin. Markaa saaxiib sidaas la mid ah ayaan baad samaynaysaa. Sidii kii hore aan u soo geliyay ayaan baad soo gelinaysaa sidii aan ID-ga front ID aan u soo geliyay ama ID-ga intiisa hore ee sawir ku yaalo sidii aan u soo geliyay ayaan baad u soo gelinaysaa. Haddaba iska bixinune haddii aad wax ka faa'iiday channel-ka subscribe saar oo mahadsan.